اسمع قرآن. caruuray waxaa jiri jiray digaagad iyo ilmaheeda waxay ku noolaayeen meel ka fog magaalada. hooyadu waxay markasta ilmaheeda kula talin jirtay inaysan ka fogaan, sidoo kale waxa ay uga digi jirtay khatarta dawacadu ay leedahay. ilmaha yar ee ay dhashay digaagadu waxa ay ku dadaali jireen in ay fuliyaan oo ay qaataan talooyinka hooyadood. dawacadu waa ay maqlaysay hadallada ay hooyadu kula hadlaysay ilmaheeda, waxayna ku gaban jirtay geed ku dhow gurigooda. waxa ayna isku dayi jirtay inay mar uun cunto ilmaha yaryar ee ay digaagadu dhashay. boojaantan yari waxa ay diiday inay qaadato taladii hooyadeed, waxayna go-aan ku gaartay inay bannaanka aado oo ay guriga ka fogaato. dawacadu markasta waxa ay ku soo dhuuman jirtay geed ku dhow guriga, waxa ay ka baqi jirtay in ay aragto digaagada weyni. dawacadii waxay gacanta ku dhigtay boojaantii yarayd ee madaxa adkayd ee diiday inay qaadato talooyinka hooyadeed. waxay dawacadii isla markiiba afka gashatay ilmihii yaraa. digaagadii ilmaha dhashay waxa ay maqashay qayladii ilmaheeda, waxayna dhaqso u soo aaday meeshii ay dawacadu ku haysatay ilmaheeda. dawacadu markii ay aragtay digaagadii weynayd oo xaggeeda u soo socota, waxa ay iska dhigtay wax dhintay oo waxay isku tuurtay dhulka. boojaantii yarayd waxa ay ku dhex jirtay afka dawacada oo waa ay nabad qabtay, wayna ka soo booday iyada oo qaylinaysa. hooyadii waxa ay mar kale u sheegtay ilmaheedii in aysan fogaan. maalintaa laga bilaabo ma aysan dhicin in uu ilmo dambe hooyadii ka fogaado.